dibadbaxyo ballaaran ayaa ka dhacaya gobolka Idlib ee dalka Suuriya waxaana dibadbaxayaashu dalbanayaan inay beesha caalamku soo farageliso duulaanka lagu soo qaaday gobolka Idlib ee mucaaradku haystaan ciidamada dowladda Suuriya ayaa imika kaabiga ku haya xuduudda gobolkaasi Idlib ee ay mucaaradku ku xoogan yihiin xoogagga Suuriya ayaa gacan ka helaya Ruushka iyo Iiraan dhanka kale shirweyne ka socda magaalada Tehran ee caasimadda dalka Iiraan ayaa waxa ay dalalkan sheegeen in dagaalka ka dhanka ah waxa ay ugu yeereen argagixisada uu sii socon doono waxaana ay sidoo kale sheegeen Iiraan iyo Ruushku inuu xaq u leeyahay madaxweyne Assad inuu gacanta ku wada dhigo wadankaasi walaaca laga qabo duulaanka gobolka Idlib ayaa waxa sidoo kale lagu soo qaaday kulanka golaha ammaanka ee qaramada midoobay tanjiraha wadanka UK u fadhiya golaha ammaanka ayaa sheegay in carruurta ku sugan gobolka Idlib ay ka badan yihiin xoogagga mucaaradka ee gobolkaasi gacanta ku haya qaramada midoobay ayaa hore uga digay weerar ballaaran oo ay dowladda Suuriya iyo xulufadeedu ku qaadaan gobolka Idlib sidoo kale Mareykanka ayaa ka digay inay dowladda Assad u adeegsato duulaanka gobolka Idlib hubka kiimikada ah isku soo wada duubo dalka Suuriya ayaa wajahaya 7 sano ee la soo dhaafay dagaalo sokeeye oo galaaftay nolosha dad badan oo shacab